walaalayaal caruurta qurbaha ku nool khaasatan wadamada ee gaaladu u badan tahay ee geesaweyntu ka talisa ku nool waxay haystaan laba ilaah. waxaan ka wadaa waxay haystaan laba ilaah walciyaadu billaah. cunuga markuu taga iskoolka waxaa loo soo sheegaa laga soo bilaabo xanaanada ilaa jaamacadda ku geeye waxaa la soo baraa lagu soo albaabinaa in ay haystaan ilaah ayaga u gooni ah oo la yidhaha ciise calayhi salaam. sidoo kale waxaa la soo baraa ilaahya yaryar sida Firey oo kale maxaa la dhihi jiray Rusta oo kale. inkastoo Rusta uu yahay boqor laakiin Firey oo kale waxa waaye ilaah ay aaminsan yihiin wadamada Nordic-ka la isku yiraaho Scandinavian-ka camal ah. marka Scandinavian-kan Norway iyo Sweden iyo wadamadan caadiga oo diriska wada ah waxay aaminsan yihiin in ilaah iyaga u gooni ah ee Firey la leeyahay oo jiro. Fireyada dabcan waxay nagu baran anunka waxaa lagu isticmaalaa mobilada ayaa lagu soo degsadaa aydiyada iyo dukumiintiyada ayaa lagu aruursadaa marka si lagu jeclaysiiyo oo lagu baro oo la yiraahdo ilaahay saas wuxuu xafisan yahay ayaa ay ku soo dhaxdareen abka mobilka iyo applicationada. laakiin run ahaantii waa ilaah ayaga ay aaminsan yihiin. si guud haddii aan u dul marna marka cunugi waxaa la leeyahay ciise ayaa ilaah ah. guriguu yimid cunugi hadduu gurigii yimid marka adiga wax ma aadan weydiin asigana inuu ilaabaa laga yaabaa ila ilmaha markii wax loo sheego markaas aan wixii aadan weydiin wixii maalinta koobi waxay gelayaan qalbiga hore. waxaa jiro qalbi daahir iyo qalbi baadin. qalbi daahirka waxaa la yidhaha qofka haddii maanta wax loo sheego la yidhaha masalan gacanta midigta waa lagu cunaa qofkii maalmaha kooba marna bidixdoo ku cunaa marna midigtoo ku cunaa marna ku dhex daraa waayo wixii loo sheegay weli ma gaarin qalbi baadinkii. qalbi daahirkan hore ayay joogaan laakiin mugaad kini ku wado maalmo ku celceliso cunugii midigtoo ku qabsaa waa qalbi baadinkii uu degay. xataa hadduu hurdaayo aad soo kiciso wax u taagto asoo hurdaa waaya bidixda kuu soo taaga madaxuu kuu soo taagaha midigta. muga waxa haddii loo sheegay ilmaha oo leeyahay masalan ciise ayaa ilaah ah qalbi daahirka ayuu degaa maalmaha kooba. haddii aad ka daba tagto aad tiraa maanta xaal lagu soo dhiga aabe maanta xaal lagu soo dhiga hooyo biriga xaal lagu soo siiya hadaad tiraa uu kuu sheego amba aadba ogaato inaad ka daadisaa ku qasbantaa markaas aad booskaas inuusan ilaah ahayn horta aad ku shubto. waayo haddaad tiraa ilaah ma ahana ilaahayna waa ka saxda hadaad dhahid cunugii caddayna aadan u keenin foogtana ay yidhaaheen haddana ilaah waa asiga waxay naqanayaan cunugii inuu wareero oo labada gees looga shubo. muga cunuga haddii labada gees looga shubo qofna yidhaaho ilaaha ciise ah qofna uu yidhaaho ilaah ciise maan ilaahay saxda waaye cunugii marka dambe waxay gaareen inuu yidhaho waaba idinku wareero labadiinne anigu dhexdaasaan istaagaa iga leexda. waxaa waa ay yidhaahiin diinta dhexdhexaadka ah waa diinta dhexdhexaadka oo hadda gaaladu ay dhahaan hebel hebel waa qunyar socod hebel hebel waa qunyar socod waa diin dhexdhexaada waayo diin qunyar socod la yidhaha ma jirto. diintu waa imaa fariiqun filjanna waa imaa fariiqun finnaar. muga isku day inaad cunuga la sheekaysato ka dhaqdo wixii loo soo sheegay wixii markaas aad cilmi uga tiri karto cilmi uga tirto wixii aadan cilmigeeda lahayn aad culummada la kaashato amba aad waqti ku filan siiso isku day. midna ku darsee cunugu markuu ogaado inay toodu qaldan tahay taada horeba ka helaa waayo cunugu waxaa la soo baray labada diimood diimo way badan yihiin dabcan dadka ay kala haystaan laakiin labada diimood ee ugu waaweyn ee dadka ay u badan yihiin waa muslimiinta iyo kirishtanka. muga cunugu haddii kirishtaanimadii inay qaldan tahay loo sheego aad ka soo fujisay wuxuu ku qasban yahay markaas inuu midda islaamka baarbaar ugu yaraan un. laakiin haddaadan ka soo fujin oo labadaba inay saxan yihiin isku haysto hadhow wuxuu leeyahay labadooda saxan yihiin teen qaataa midda ii shuruudeer waayo laba wado haddii hal magaalo wada galaan oo midna ay leedahay kaamiro midna aysan lahayn kaamiro oo kugu dhacayo midna ay leedahay maxaa la dhahaa booliis midna aysan lahayn booliis midna shidaalkeedu badan yahay midna shidaalkeedu yar yahay adigu waxaad qaada markastoo midda kuu fudud. waayo diinta kirishtaanimiyada soonkan badan annaga aan soomanin kasta naga soon badan yihiin haddana waxay aaminsan yihiin qofka soonka aan awoodin qalbigiisa nadiifa ka dhigto iyagu soomina iska dhaafo dadka ayaga qaarkood. xijaabkan waxay aaminsan yihiin qaarkood inkastoo sida guud in xijaabtaan ay tahay
haddana waxay aaminsan yihiin qayb ka mid a in xijaabka in la iska dhaafo ay tahay. mugga way ka shuruudo yar tahay tay islaamkaa shuruudo badan. mugga cunugu wuxuu leeyahay haddii hal jin la wada gelaayo midda fududan qaadana ani maxaa diintan culeyskaa 30 beri la soomaayo la isxijaabayo xaaraanta aan la geli karin ribada aan la cuni karin haddii aan la koran yahay xumaanaha dhan la iska ilaalinayo xaq hortiiga surin maadaama labadaba ay iska wada mid yihiin. mugga horta waa inaad barto ka dhaqdo intan ay haystaan horta ayagu si sax aysan u haysan waayo diinta nabi ciise calayhi salaam waxay ku leeyihiin waa buundow ahaay oo ilaah iyo isku xira dadka waa sax buundo waa ahaay nabi kastoo la soo dirana wuxuu ahay buundo waayo nabi walba oo ilaahay agtiis laga soo diro ka soo bilow nuux daala ku waran yahay ibraahim ilaa ciise maxamed calayhi salaatu wasalaam nabi walba wuxuu ahay buundo waayo adiga sida ilaahay ku caabudo ma taqaanid saa ilaahay ku caabudo maga waa in nabi lagu soo diro wamaa kunaa mucadibiin xataa nabcatha rasuula sida aad ilaahay ku caabudo haddii aan nabi lagu soo dirin ousan kuu sheegin ma ogaa kartid adi maskaxdaada kama keensan kartid. masalan haddii hadda lagu yidhaaho ilaahay waxuu mudan yahay waxaad leedahay aniga waxay ila tahay ilaahay salaada subax oo kale maadaama 2 ragca ay tahay waqtina la haayo in 4 loo dukado duhurka oo kale maadaama ay tahay shaqo oo la shaqaynayo oo dadku ay mashquul yihiin waa in 2 la dukado ama 3 la dukado si cisho oo kale 6 in la dukado maadaama dadku aysan shaqaynayn oo guryaha joogaan yani waxaad ku binaynee aqligaaga. آياتنا واتي هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة. الله سبحانه وتعالى يا رسول كيسا مكي وحجيديان قفك مؤمن كا إنه أقل كيسا كو بيخاميو إنه واقع عجرو لا إيكتو إنه مسكح ديسا كو ملا أوالو كو مامرو حق وملا مكا سيا إلهي كو عابدنا عنكم من نغانو هدان أنبينا لو صدر لهين إهيلي لهين ووريري لهين ويقدر كذا amba waxaarta daatira ilaahay caabud ma caabudi karto waayo ayaga ambiye looma soo dirin quraanku ma quseeyo xadiistu ma quseyso qowl ijmaac ma quseeyaan waxaasoo dhan aday ku quseeyaan. muga horta cunuga isku day inaad ka dhaqdo waxa ay haystaan inay faasi tahay markaad ogaato ama markuu ogaado inay faasi tahay waxa ay haystaan waxaa fududaanaysa inuusan wax ka dhegaysan waayo wuxuu leeyahay waxaad haysatay waa faaside horta xaaladii ka dhageysana horta idinkaaba dhunsane nin dhunsan ee GPS qaldan ku socdo hadduu ku yidhaa aan ku hago ma ka yeeli waa maya waxaa leedahay GPS qaldan ku socdee horta GPS raaya soo gasho muggaasna isu ka hekeen. mugga horta isku day inaad horta ka soo dhaqdo ayaga aad soo bixiso haddii alla kuuraya aad qaladkooda tusto kadib muggaad qaladkooda ou arko ayaad mugga haddana taadi waxaad u siiyay haddana qaando inta aad ka soo bixiso kalaad gelihi ha ka badinin haddaad 1 kiilo ka soo bixiso qalad ah 1 kiilo xaq ah ku shub haddaad 10 kiilo ku shubto xaq ah cunugu qaado maayo mugga u yareey kiilaad ka soo bixisay kiilo ku shub dhinacan kale kiilo uga bedel nus kiilo ka soo shubtay qubxiya nus kiilo khayr ah ku shub haddana. hada billahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.